أنا ودني بشي قدام بيسي waxaanu soo qabanay 166 xabo oo khamriya oo aanu ka soo kala qabanay area-da xuduudda aan leelanahay ilaa iyo meesha laado waraqa oo habeenkii dadku ay la soo maraan oo lagu keeno karaatoon boorsooyin iyo waxyaabaha dadku ay qaataan ee lagu soo qaado qaarkood waxaaba lagu keenaa dameeraha lagu keenaa oo aanu ku qabanay tiradan oo aanu u soo gudbinay maxkamadaha rafcaanka iyo gobolka oo ay xukumeen eedeysanaashiina ay jiraan jeelka hawlgalkaasi oo runtii in badan nagu qaatay oo muddada in halkaa inta ay dhantahay idinku aad wada garanaysan si aanu uga dabargoyno oo uga burburino gobolka waxyaabaha noocaas waana kala nooc oo qaar waaweyn iyo qaar yaryarba way leeyihiin baalkana waa jiinkii lagu sameynayay darkan darskeenna ay agteenna abaa sameeya siiyey guusha aanu ku qabanay مخدراتك iyo waxyaabaha bulshada fasaadiya waxaan amaan u dirayaa ciidanka booliska ee gobolka howlgal bilihii u dambeeyay ay ka wadeen gobolka oo ay ku guuleysteen waxyaabaha khamriga ay ka mid yihiin indhihiina aad ku arkaysaan tiradooduna ay dhan tahay 166 runtii ayna hawl aad qiimo leh uga qabteen kana wada socdeen maxkamadda sare ee gobolka iyo rafcaanka iyo xiriirlaanta gobolka iyo ciidanka amniga oo iskaashada runtii wax ilaahay loogu mahadiyo waxaan fariin u dirayaa bulshada reer Awdal dhammaan waxaan fariin gaar ah u dirayaa dadka ka ganacsada waxyaabaha dhaqanka iyo islaamnimada iyo dadnimadaba wax u dhima waxaan leeyahay ciddii dambe ee ku qabanna khamri waxaanu ka qaadi doonaa tallaabo sharciga waafaqsan oo adag waxaanan u gudbin doonaa xabsiga Madheera waxaad arkaysaan in lagu gubayo khamrigaasoo dhan 166 litir oo khamri ah oo lagu soo qabtay dadka ka ganacsanayay iibinaya khamrigan oo runtii ciidamada boolisku gacan adag oo biro ku soo dhigeen waxaan mahad celinaya taliyaha qaybta booliska ee gobolka Awdal taliyaha saldhigga iyo ciidamadiisa oo dhan iyo xeerlaalinta iyo maxkamadihii runtii maxkamadeeyay oo maxkamadda sare iyo maxkamadda gobolka iyo maxkamadda rafcaankuba ay ku maxkamadeeyeen dadkii eedeysanayaashii lagu soo qabtay oo xabsiga ku jira 166 litir ee khamri ah oo kuwa loogu talagalay in lagu fasahaadiyo dadka reer Awdal ama dadka reer Boorama ee degmada magaalada Boorama degan in lagu fasahaadiyo dhalinyarada khaas ahaan dhalinyarada dadka ka ganacsanaya runtii haddaan nahay maxkamadaha maxkamadda rafcaanka iyo taliyaha taliska booliska tallaabo adag baa laga qaadi doonaa runtii waa gaadiidka uu saaran yahay cidda ka ganacsanaysa dhammaan intoodaba tallaabo adag oo sharci waafaqsan baa laga qaadi doonaa khamrigan waxaa ku maxkamadda sare maxkamadda gobolka iyo maxkamadda rafcaanka saddexda maxkamadoodba eedeysanayaashii lagu soo qabtayna way xidhan yihiin waana la xukumay in tiro yar baa baxsatay oo khamrigii ka yaacday waana lagu daba jiraa runtii waana la soo heli doonaa marka waxaan faraynaa oo kan fariin adag uga diraynaa dhammaan dadka ka ganacsada khamrigu inay ka waantoobaan waa walaalihiin baa fasaadinaysaan waa dadkiinii baa fasaadinaysaan gabdhihiin iyo dhalinyartiinii baa fasaadinaysaan waxa ilaahay xalaala ka ganacsada oo ummadda fasaad ka daaya cidda aan ku aragno ama khamri cidda ka ganacsanaysa meesha lagu sheegaba ciidamada amnigu way ku daba jiraan waana la soo qabanaya dadweynahana waxaan ka codsanaynaa inay soo sheegaan meel kasta oo khamri laga ganacsanayo inay soo sheegaan waxaan laga qaadi doonaa tallaabo sharciga waafaqsan وصايق دير بو متيسن دوله حشيشه درراعي الا waxa leexi muqaadaraada xashishada khamriga waxa maandooriyaha maskaxda qofku bedelaya dhibaatooyin far badan waxa amnigu inuu keenaya saadaradeed waxaan kabada raxfaanka iyo dhamaan ciidanka amniga oo dhan khamrigan waxa soo qabtay ciidanka biliiska ayaa soo qabtay waa mid ay maxkamaduhu ku guteen waajibkooda markaan ku ogay dambigood وقار الحكومي waxa ku jira wax yar oo ay ka baxsan eedeysanayaasha yaryar oo ay ka baxsan eedeysanayaasha oo lagula daba jiro raadkoodii sidii loo soo heli lahaa sababtoo ah dalku wuxuu xuduud leeyahay xuduud ku yaala waxa uu yar u jiraa 10 kiiloomitir wax ka yar xuduud u jira halka uu badhigaya way ka yaacayaan laakiin ciidanka ammaanku aad iyo aad buu dadaalaya aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa